guddigu waxay soo bandhigeen tiirarka waxa weeye ay ka koobnaan doonto shaqadooda istaraatiijiyadooda maxaa la yiraahdaa shaqo 5-20-29 ruuxatii wuxuu ahaa istaraatiiji aad u qurux badan oo dad aqoon-yahan ay ka soo shaqeeyeen si fiican loo soo qoray annagana talo iyo tusaalena ka weydiiyay oo aan isleenahay wax badan oo laga bartay doorashooyinkii dawladaha hoose inoo qabsoomay baa hadda la raba in la dhaqan geliyo oo si loo saxo caqabado badan oo markii hore la bartay waxa kaloo aan dood fiican ka yeelanay cimilada arinta isbedelka cimilooyinka iyaduna oo saameyn badan ku leh doorashooyinka anagu waxaan ka soconay dalada naafada Puntland waa ku darsanay codka golahayn waxaan ka faraxsanahay inuu shirka ahaa mid u oggolaanay dadka in qorshaha ay soo bandhigtay hay'adda PEC mid ay ka furneed in wax lagu daro waxna laga saaro anagu dhankayaga waxaan ku darnay wixii talooyin ku aadanaa sidii loo taabagelin lahaa qorshahaas iyo sidii loo maareyn lahaa caqabadihii faraha badnaa geediga dimuqraadiyadda Puntland soo wajahay Puntland way hagaagto wata heerka sare gaartay waxay hiigsanayeen bulshadu baa ka hana qaaday hal qof iyo codkii lagu tartamay wuu hirgalay maanta عيبتيو قبيل لقى بحيو هوانتي وياني شعبكو همون قبينو قارو هيدن كاسي عيانكيو قيدي قلرري هوي سنبود لقي عيبتيو قبيل لقى بحيو هوانتي وياني شعبكو همون قبينو قارو هيدن كاسي gediga la raray hawaysan buu degay madaxdi hoggaanka u ahay kushara hooseeday aan daraar qura hargelin aan daraar qura hargelin waxa isu taageeray hay'adda PEC أيوة وافش قلنيسا إن شاء الله تعالى استراتيجية شنطة صوصعة في لوجو اللي دورشة لوجو لها أنا واحد عني زلادة نافضة بلان وقدر سنة أتكلم بلاهين وها تذكر باهدا قار كاري أما نافضة حقوق إليهن ورسميهن بالشدة dadkaasoo aad iyo aad tiro badan ah 20 bulshada Puntland ama markaa hawdiyoon ka shaqo 20 inaguna waa ka jiraayo waxyaalaha keeni kara naafadu way ugu badan yihiin marka dadkaas inay helaan xuquuqda yani ay ku leeyihiin dalka doortaan lana doorto aad iyo aad baa la soo dhaweeyay doorashada hore dadkoo dhan baa in badan waqti ka dhumay oo aan ka faa'iideysan laakiin markii dambe haddii la arkay fawaa'id leedahay واحد أنا قلت حتى الناس واجرين وباشوا واحد من المودي وهذا الله وده يستوى واحد شكائي هنا لو جاري بعضاً لكن هنا قطب قال لي واحد وقطب قال لي يعني واحد يقفل وشيء يقول شوية هاي سيعود يقول أنا واحد لنا يفرد هو ربنا هاي جولة يتمنى يكون مشوقنا مركب واحد خرج هنا بدنا باك لا شغلنا وضدك بعد جار كان هاي وكحت الصباحية guddigu waxay soo bandhigeen tiirarka waxa weeye ay ka koobnaan doonto shaqadooda istaraatiijiyadooda maxaa la yiraahdaa shaqo 5-20-29 waxa ay aan halkaan anaguna maanta aan ku soo gudbinay waxyaabaha ay u arkaan hay'adahaas bahwadaagta la ah in lagu daro ay ahayd waxa weeye ama ka dhinayd waxyaabihii la rabay in maxaa la yiraahdaa laga soo bartay casharadii laga soo bartay doorashadii 36 degmo tii saddexda aad ka sii horeysay iyo saddexdii dambe oo waxa weeye hadda July soo gabagabowday haddaan maxaa la yiraahdaa wax laga baran casharadii shalay doorashooyinkii daba joog ah oo kala duwan oo soo qabsoomay waxa weeye dib bay inoo sii dhigaysaa waxa muhiim ah marka inuu waxa weeye gacmaha isaysana mas'uuliyad wadareed
collective responsibility iyadoo qolo walba meesheeda ka qaadanaysa hay'adaha bahwadaagta ah dawladda waxa weeye hay'adaha u qaabilsan guddiga doorashooyinka intaba si wada jir ah inay uga qayb qaataan sidii hore loogu socon lahaa wixii shalay dhacay waxa weeye wax laga baran lahaa runtii waa marka hore waan bogaadinayaa in la tashi wax walba la geliyo oo waxa lagu wada qanacsan yahay ay noqoto shaqadu bulshada rayidka ah oo door muhiim ah ku leh doorashooyinkana ay noqdaan cidda lagala tashanayo ka mid noqdaan cidda lagala tashanayo shaqooyinkan sidii loo qaban lahaa si guud istiraatiijiyadu waxay ahayd wax qurux badan oo aan isleenahay wax badan oo laga bartay doorashooyinkii dawladaha hoose inoo qabsoomay baa hadda la rabaa in la dhaqan geliyo oo si loo saxo caqabado badan oo markii hore la bartay marka istiraatiijiyadu runtii waxaan isleenahay waxay ka jawaabaysay inay baahiyihii iyo wixii aan ka barannay doorashadii hore ay buuxiso arinta labaad oon bogaadinaynana waxa weeyaan arrinka shuruucda oo istiraatiijiyadda qodobka koowaad u ahayd sida istiraatiijiyadda ku qoranna sanadka ugu horeeyaba arrimaha shuruucda laga shaqayn doono markasta oo shuruucdu noqoto wax la isku waafaqsan yahay oo sida istiraatiijiyadda ku cadna shuruucdu noqonayso mid la tashi ku timid oo aan ahayn mid guddigu inta iska samaysto xukuumadda la mariyo baarlamaanka la geenaye sida istiraatiijiyadda ku cad waxa weeyaan shuruuc laga wada tashaday oo cid walba oo doorashadan qusayso ay ka tashatay ay noqon doonto marka arrinkaasi waa buundhig fiican buu u yahay arrimaha doorashooyinka run ahaantii maanta shirkaan ka soo qayb galna aad baan ugu faraxsannahay in dhalinyarada laga siiyo dowr iyo la tashi in ay shirkaan ku yeeshaan runtii shirkaan ay beek maanta iskuulka ay keentay dhammaan civic society oo dhan waxa uu ahaa shir istiraatiijiga lagu soo dejinayo doorashooyinka 5 sano soo socda loona baahnaa waxa weeyaan in consultation laga sameeyo phase-kiisa labaad validationkiisuna uu harsan yahay run ahaantii wuxuu ahaa istiraatiiji aad u qurux badan oo dad aqoon-yahan ay ka soo shaqeeyeen si fiicanna loo soo qoray annagana talo iyo tusaalena la ka weydiiyey run ahaantii anagu waxa weeye wax yar oo talaan ku darsanay oo ay ka mid ahayd wacyigelinta sababtoo ah doorashooyinka hore meelaha caqabadaha naga haysteen iyo dib u dhaca iyo codadkii aad nooga hoos dhaceen waxaa ka mid ahaa inaan weynay dadka codeynayay wacyigelintii oon kor u qaadnayn qaabkii wax loo dooranayay dhammaantoodba anagu talada ugu weyn aan ku darsan dhalinyarada waxay ahayd in wacyigelinta kor loo qaado dhalinyaradana door weyn laga siiyo sida hadda doorkan consultation looga siiyo in hadhow wacyigelinta looga siiyo waxa weeyaan doorka ay ku leedahay doorashooyinkan ay xaq ugu leeyihiin runtii aad baan uga mahadcelinahay guddiga dhamaanta Tibek waxyaabaha kale oo aan ka wada hadalnay waxay ka mid ahayd oo aan ka discuss garanay sida loo gaari lahaa dadka reemiga iyagana oo reer guuraaga ah numberkii waagi dhaweyd la gaaray aad buu yaraa nin iyadana bal qaabkee loo gaari karaa inaan maaragtay daraasad istiraatiijiyadu ay xustay waxa kale oo istiraatiijiyadu ay si fiican uga wada hadalnay wacyigelintii qaabkee dadka wacyigelin loogu sameyn karaa maadaama laga yaabo platformska social media iyo internetka isticmaala inaysan qaybo ka badan oo kamid ah aysan isticmaalin qaabkee loo gaari karaa waxaan ku biirinay maaragtay fikirkeena ku saabsan qaabka maaragtay loo gaari karo dood fiicanna waan ka yeelanay arrimaha dooda fiican laga yeeshay iyagana waxa kamid ah qaladaad horena ay ka dhacday markii horena aad loo xoojin iyadana nidaamka xisbiyadu inay la awoodeeyo xisbiyadu ay maaragtay system institution ahaan ay u jiraan meesha badana hadda ay u muuqdaan inay shakhsiyaad yihiin laakiin in la awood la siiyo oo system maaragtay institutions dhisan ay noqdaan si aan hadhow isku qabqabsi iyo dood aysan uga iman xisbiyada dhexdooda iyo maaragtay hogaankooda iyo cidda maaragtay musharaxiinta noqonaysa waxaa kaloo aan dood fiican ka yeelanay cimilada arinta isbeddelka cimilooyinka iyaduna oo saameyn badan ku leh doorashooyinka inkastoo aanan go'aan la isla gaarin oo uu yahay consultation bilow ah hadeer laakiin waxyaabahan soo jeedinay waxaa ka mid ahay in doorashooyinku ay xilliyada barwaaqada ku aadi karaan oo aad ugu macquulsan xilliyada la qaban karo waxaan ka faraxsanahay inuu shirka ahaa mid u oggolaanay dadka in qorshaha ay soo bandhigtay hay'adda PEC mid ay ka furneed in wax lagu daro waxna laga saaro waxyaabaha ugu muhiimsanaa laga hadlay maanta waxay ahaayeen in wax laga barto waxyaabihii hore nooga xumaaday iyo in la sii adkeeyo waxyaabaha isleenahay way noo wanaagsanayeen waxyaabaha muhiimka aad looga hadlay waxaa ka mid ah in la xoojiyo wacyigelintu oo dadka xilliga isdiiwaangelintu ama xilliga soo bixitaanka siduu kor u kici lahaa waxyaabaha kale oo muhiimka laga hadlay waxaa ka mid ah in qorshiyaalka hay'adda PEC in lala xiriiriyo isbedelada cimilada maadaama ay Soomaalidu u badan tahay dad reer guura ah
waxyaabahaasoo dhan waa laga wada hadlay si gaar ah hay'adda kaalo maadaama ay tahay civil society organization aad u ballaaran oo presence weyn ku leh Puntland iyo Soomaali qaybeeda kala duwan waxay diyaar u tahay in ay kaga faa'iideysato joogitaankeeda ama presence meelaha kala duwan ay joogto inay qayb weyn ka noqoto sidii wacyigelin loo gaarsiin lahaa Soomaalida meel kasta ay joogto siday ugu qayb qaadan lahaayeen codeynta waxaa kaloo muhiim ah in ay kaalo diyaar u tahay inay kala shaqeyso qaabka ugu muhiimsan dadka baahiyaha gaarka leh ama dadka naafada ay qayb ugu noqon lahaayeen in doorashooyinka ay ka qayb qaataan waxaa muhiim ah in iyadana kaalo ay markasta qayb ka ahayd korjoogteynta doorashooyinka xilliga ay doorashooyinka dhacayaan waxaa kaloo aan diyaar u nahay inaan PEC kala shaqeyno sida loo heli lahaa maxaan ku yiraahdaa dhaqaale barnaamijyada lagu sii wado iyo qaabkii mashaariic barnaamijkan ku soconayaan kala wada shaqeyno laakiin muhiimadda guud waxyaabaha la isku raacay waxaa ka mid ah in barnaamijkan uusan noqon mashruuc ku tiirsan in cid kale waxyaabo laga helo ama wax laga sugo laakiin ay noqoto wax dadka Soomaaliyeed si gaar ah dadka reer Puntland iyo dawladda inay dhaqaale ku bixiyaan isla markaana aysan noqon wax cid kale markasta laga sugay aad baan u mahadsantahay anagu dhankayga waxaan ku darnay wixii talooyin oo ku aadanaa sidii loo taabagelin lahaa qorshahaas iyo sidii loo maareyn lahaa caqabadihii faraha badnaa ee geediga dimuqraadiyadda Puntland soo wajahay iyadoo lagu dhisay khibradii laga kasbaday arrimaha muhiimka ee qorshuhu taabanaya waxa kamid ahaa ka qaybgalka bulshada iyo sidii loo kasban lahaa aaminaadda iyo kalsoonida bulshada sidii loo sii horumarin lahaa tayada iyo kartida guddiga doorashada laftigiisa uu leeyahay iyo sidii reform loogu sameyn lahaa xeerarka doorashooyinka iyo nidaamka maamulka doorashooyinka runtii wuxuu ahaa kulan caqabad leh wax badan la isku weydaarsaday waxaanan ku rajo qabnaa in talooyinkii badnaa ay soo jeediyeen bulshada rayidku la meeleeyo halkaasna uu ka soo baxo qorshe macquul ah oo la fulin karo oo u diyaariya dadka reer Puntland in doorashooyinka qurux badan ay u qabsoomaan waana uga mahadnaqaynaa guddiga doorashooyinka caasimadiisa iyo la tashiga uu la sameeyay bulshada rayidka oo qaybo muhiim ah ee kana shaqeeya wacyigelinta iyo si guud in bulshada loo diyaariyo ka qaybgalka nidaamkan